مدى العقيدة جند الله شيخ آدم صاي في حزب الله وشافع الناس لا لله أغيثنا بفضل الله يا سادة الشهداء مدد يا سادة الشهداء أيام يا سادة الشهداء أغيثنا. boqolaal shacab ah oo iskugu jira rag iyo dumar ayaa maanta ka qayb galay xuska shuhadada ahlusunna wal jamaaca ee 17 Ramadaan oo sanad waliba lagu dhigo magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud. sidoo kale waxaa lagu xusaa maalintaani shuhadadii dagaalkii Badr ee lala galay gaalada. waxa ay u horeen qaar ka mid ah haweenka ka soo qayb galay booqdeen qabuurta shuhadada ee ku taala magaalada Guraceel iyagoo halkaasi ugu soo duceeyay. intaa kadibna waxaa la soo aaday dariixa Allah u naxariistay maalin Cabdullaahi Cali Dhagweyne waxaana halkaasi iskugu yimaaday culummo waaweyn. waxaa ugu horeen goobtaasi lagu qaaday qasaa'ido loogu duceynayo shuhadadii ahlu sunna kaga geeriyooday dagaalkii ay la galeen al-shabaab. ربي يوسف مشتاقي أغيثنا بفضل الله يا سادة الشهداء مدد يا سادة الشهداء الله مدد يا سادة الشهداء أغيثنا بفضل الله. مدى العقيدة جند الله شيخ آدم صاي في حزب الله وشافع الناس لا لله أغيثنا بفضل الله يا سادة الشهداء مدد يا سادة الشهداء أيام يا سادة الشهداء أغيثنا بفضل الله. مدد من جاد النفس وما لديه لله كالكرماء عبيد النور من استقمى أغيثنا بفضل الله يا سادة الشهداء أيام يا سادة الشهداء مدد يا سادة الشهداء أغيثنا بفضل الله. مدد عثمان عمدتنا من أنجم أهل سنتنا كذا ترتيب قادتنا أغيثنا بفضل الله يا سادة الشهداء مدد يا سادة الشهداء مدد يا سادة الشهداء أغيثنا بفضل الله. مدد من راية الجهاد بعد الذل رافعها عثمان فرقاب كاشفها أغيثنا بفضل الله يا سادة الشهداء مدد يا سادة الشهداء مدد يا سادة الشهداء أغيثنا بفضل الله. مدد يا أول الشهداء عبد الولي سيف الغداء وباقي 8 من أسعدا أغيثنا بفضل الله يا سادة الشهداء مدد يا سادة الشهداء مدد يا سادة الشهداء أغيثنا بفضل الله. waxaa halkaasi iyagana khudbado ka jeediyay ku aadan shuhadadii Badr iyo ahlu sunna wal jamaaca
Sheekh Cumar Odawaaye iyo Sheekh Maxamed Wadani iyo sidoo kale Macallin Xuseen Cali Madow. qiiso yar rabaa inaan ka hadlo haddii Ilaahay ogolaado Ilaahay garansiiyo. mid waxay ku saabsan tahay Macallin Cabdullaahi Cali Macallin Maxamuud. aniga iyo asaga rag aan ka midnahay Macallin Cabdullaahi waxay ahaayeen aasaaskii dugsiga lagu aasaasay bidco inaan ka wacdino dhinacan jihada waqooyiga la yiraahdo oo Bilhowd iyo ilaa Baak. waxaan ka mid ahay Macallin Xuseen raggii geeyay oo ka aasaasay inuu kitaab ka akhriyo intuusan shahiidin. waxaan ka mid ahay raggii Sheekh Cabdirasaaq geeyay inuu dadka wacdiyo. nimankii masaajidaas dhisayay inay ka celiyaan dadka raggii aasaasan anigu hadda Cumar Odawaaye ninka la yiraahdo ka mid aha. intaas Macallin Cabdullaahi inta kale la wadaaga wuxuu u sii dheeraay familkiisa waxay ku cadwaaneen lacag kasta loo keenay. hadda xaman ma waa kor jooga kuwa asaga ilma adeer la ah. masaajidka Bilhowd laga dhisay 20 kiishaananiya asagu u qaadana asan ku aasaasana macallinka iyo aniga iyo Macallin Xuseen iyo Sheekh Cabdirasaaq ayna diiriyaa reeb ka mid yahay. waxaan uga jeedaa taas Macallin Cabdullaahi wuxuu faadil laahay oo manaaqibtiisa ma xisaabi karno. khawaarijta ninkii ay dilaan ama qofkii ay dilaan iyo qofkii ayaga dila ayaa laanta janna u sugnaatay. dadkii uu yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam ee shuhadada ahaa ee khawaarijta la dagaalay ee dilay ee ayaguna sababsaday ayaa waxa la qorsheeyay in ayagana astaan looga dhigo lagu xasuusanayo lagu xusaayo مثلا لو بدو عينايو ayaa waxa la go'aansaday in lagu beego shuhadadii Badr isla markaasna ay noo noqoto maalinkaani maalin ilaahay agtiisa ka weyn way ahayd agtanadana maalin laga weyneeyo dadkii qaaliga ahaana lagu xasuusto in laga dhigo ayaa la go'aamiyay. sidaa darteed munaasabadaas ayaan maanta isku nimid. dadka shuhadada marka waa dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo qiimo u yeelay. shuhadada markaan ku leeyahay shuhadadu way fara badan tahay. shuhadadu way fara badan tahay. kuwa dagaalka khawaarijta ku shahiiday shuhada waa la leeyahay. kuwa dagaalka gaalada ku shahiiday shuhada waa la leeyahay. maxaa yeelay waxaad ogsoon tahay shuhadada waxa loo qaybiyaa shuhadaa al-aakhirah shuhadaa ad-dunya wal-aakhirah iyo shuhadaa al-aakhirah iyo shuhadaa ad-dunya ayaa loo qaybiyaa. haddii aad maqasho shuhadaa ad-dunya wal-aakhirah waa dadka ayagoo gaalada la shahaadaya khawaarijta la shahaadaya diinka dartis u dagaalamaya litakuna kalimatullahi hiya al-ulya ilaahay kalimadiisu inay kor noqoto ayagoo u dagaalamaya dadka xayaatadooda ku waaya oo ku dhinta dadkaas waxa la leeyahay waa shuhadaa ad-dunya wal-aakhirah. adduunka waa shuhado lagu tukan maayo la mayri maayo dharka ay ku shahiideen ayaa lagu duugayaa. aakhirana waa shuhado oo ilaahay manaasisha dadka shuhadada ugu tala galay ayuu ilaahay geynaya. shuhadaa ad-dunya wal-aakhirah ayaa loo yaqaanaa. waxaa jira dad loo yaqaano shuhadaa al-aakhirah. dadkaas waa maxay aad bay u fara badan yihiin. dadka biyaha ku dhinta مثلا dadka hadbiga ku dhinta dadka zalaazisha iyo dhul gariirada ku dhinta dadka noocaasa gabdhaha مثلا ba umul raacdo oo kale dadkaas oo dhanna waxa loo yaqaanaa shuhadaa al-aakhirah ayaa la yiraahdaa. adduunka marka la joogo waxa loola macaamilayaa sidii dadkii caadiga ahaa waa la mayrayaa waa lagu tukanayaa. aakhira laakiin markii la tago shuhadadii caadiga ahayd manzilkoodii oo kale ay ayaguna leeyihiin. marka cabsida ilaahay inta hadaa gudbo ragii walaalaheena shuhadada ahaa waxyaabihii ay u shahiideen oo diinta ilaahay ugu qiiroodeen oo adduunyo uga tageen waxay ahayd caqiidada islaamka caqiida ahli sunna wal jamaa inay badbaado. dadkii waxa weeye khawaarijta ahay waxa weeye in wadanka ay ka xoreeyeen oo naftooda iyo maalkooda labadaba ku difaaceen sida ayay ahaayeen. annagana waxaan naga rabaa dhabihii wanaagsanaayo ay qaadeen in annaguna qaadno. oo mid hadda Soomaaliya nima dawladdu nabada ay leeyihiin markii la arkay
nimankii loo adkeysan waayey khawaarijta ahay in lala diriro la amray oo la yiraahdo lala dagaalamo inkastoo la yiraahdo gacan daahira wax dahirta waxa weeye nimankii marka sidaa ahay hadda waxaad moodaa raggii saasoo lala dirayay magacyo badan halkaa lahaadeen laakiin hadda ayagu aad iyo aad u fara badan ay dhooban yihiin weliba kuwa waxaa la yimid la yiraahdo ducaad isku magacaabo ducaad lagu magacaabo ducaatu abwaabi jahannama qadafu ducaatu abwaabi jahannama man ajaaba qadafuhu fi naar haddii sidaas macnihiisu hay inuu yahay jira aan jecelahay kuwa ducaado dadka u yeerahaya waxay ugu yeerahayaan naarta jahannama albaabaheeda ciddii ajibto warkooda yeesha waxay ku ridahayaan naarta hadda maahan waxa weeye inay leeyihiin waxaan anagu nahay dadkii laga digayo waxay leeyihiin dadka muuminiinta oo dadka dooraanka u sheegaya diinta u sheegaya ayaa waxa anagu nahay leeyihiin waxaad ilmaqlahay wadanka in waxa weeye aad u soo dhoobteen niman isku magacaabo ducaad oo goboladan dhexe ay leeyihiin dadkii hadda hore gacanta uga jira waa ka wareegay dad laba shaqaysan karaa yimidi waxa weeye qolo kasta oo wadanka martiga ay jirtaa soo gashaa leeyahay albaabka oo furan yahay oo fasax marka kuwii marka lala dirirayay iyo kuwan wal farqu baynahuma waxa farqiga u dhaxeeya labadooda waa ilmo iyo aabayaashood wey waa mucallim cabdullaahi cali dhegweyn xaruntiisii mucallim cabdullaahi cizi iyo sharaf allah siiyo shuhadadaas aan soo sheegno kow u ahaa raggii birmada u ahaa oo weliba shacaarka aad ugu sii jiray ka mid ahaa mucallimku inuu shahiid ahaa iyo inuu maaragtay dagaalkii khawaarijta ka qayb galay ragga kale u kala sinaa laakiin wax badan u dheeraa mucallimka khayr badan allah siiyo waxaan ku xasuusanaa inuu hormuud ka ahaa dagaalka waxaan ku xasuusanaa in dugsigiisa dagaalku ka bilowday waxaan ku xasuusanaa ma jiro mana la soo helayo macallin qur'aan ee 10 iyo ka badan arday gaare oo ardadiisii iyo asagiiba ku shahiideen dagaalka ilaa macallin cabdullaahi macaan معلم عبد الله وحو خاص لها إلهي كفضلي إن مركي قرعال نلكبحي باليهود لهذا معلم كعيدا كأهل السنة براكتي سودكي قيلنا وأوغلا إلا أي شوغين ماشي كسو تغايين قعنتي كوايين خير بدن الله سيو مركا معلم خير شهادة كديري الله سيو انت كدب إن شاء الله شو عمر نودي بها قصيدة شهادة كسو ختمنا قرآن كنا وآخرين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب